dhammaan meel aan joogno ummadda Soomaaliyeed isku bogaadinayna guulaha madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaa gaaray aagaga deegaanka Ceelgarase ee gobolka Galgaduud oo maanta laga xureeyay kooxda Al-Shabaab oo muddo badan bulshada ku dhibaateynaysay deegaankaasi. Mas'uuliyiinta ayaa bogaadisay ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee cadawga ka xureeyay deegaano badan oo dhaca bariga ee deegaanada Galgaduud. Mas'uuliyiinta booqatay deegaanadaasi ayaa si rasmi ah u xaqiijisay in degmada Ceelgarase iyo Ceel la helay oo laga xureeyay kooxda Al-Shabaab.